السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله خيرك بضن وجعل إلهي سبحانه وتعالى كلام كيسة النبي عليه الصلاة والسلام كلام كيسة إني دقيستان كل رقمان ذاتك كلنا قارسيان. النبي عليه الصلاة والسلام وحيري حديث إمام مسلم إمام أحمد وريين waxaa imaan doontuu yiri calayhi salaatu wasalaam fitan isdaba joogto. xadiiskaasi rasuulku wuxuu ku bilowday calayhi salaatu wasalaam qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam baadiruu ila alacmaal, waxaad ku degdegtaan acmaal fara badan oo acmaalu saalixa ee ilaahay uu raali ka yahay inaad samaysaan. ku degdega. baadiru macnaheedu waxa weeyaan saabiqu anaha hadda sameeyo waqti waxaa imaan doonto ayaa halkaa ku qarsoon aad waqti u helaynin acmaashaasi inaad samaysaan. ama waxaa loola jeedaa waqti waxaa imaan doonto fitan isdaba joog ah oo wax ku badbaadinaya aysan jirin ilaa acmaal saalix aad samayso. camal saalix ah. hadda salaad badan tuko, hadda soon badan soon, hadda kitaabka qur-aanka wax badan akhri, hadda dikri badan samee, hadda masaajidka ku noqnoqo, hadda sadaqo badan baxso, hadda salaatuleylka habeen walba u istaag, hadda xiriiri qaraabada iyo asxaabtaada ahlu khayrka ah, hadda dacwada islaamka samee. waxaasoo dhan waa acmaal saalax. baadiruu ila alacmaal, ku degdega acmaal inaad samaysaan. fitanan rasuulku wuxuu yidhi fitanan fidnooyin isdaba joog ah ka qiطci alleyl almudlim, habeenka mugdiga isku heeshaysto. mugdiba mugdiga ka dambeeyo. fidno saas isku daba haysato midba midda kale ka sii daran ayaa imaan doonta. markaasaa nabigu wuxuu yidhi yusbixu arajulu, qofkii wuxuu waabaraysanayaa fiiha macnaha fidnadaasi dhexdeeda markii ay bilaabato ayaa qofku wuxuu waabaraysanayaa mu'minan wa yumsi kaafiran. galabtiina waa gaaloobaya. subaxdii waa mu'min, galabtiina waa gaal. wa yumsi معناها مركز واحد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. هدنا يصبح كافرا وحو لصعك على هرددا أما اللو بريسانايا إساقو قالة ويمسي مؤمنا. قلبت هدنا اسبدالايا سلامكو كو نقونايا مسلم نقونايا مؤمن نقونايا. markaasaa rasuulku wuxuu alayhi salaam yabiicu diinahu, diintiisuu suuq geynaya. waxa ugu qaalisan oo bini aadan uu haysto waa diintiisa. diinta islaamka maadaama ay tahay diinta keliya oo saxda ah oo ilaahay uu leeyahay ina diina cinda allahi alislaam, diin ilaahay xaggiisa waxaa ka ah islaam oo keliya. maanta waxaa soo baxeen culummo ku dhahayo gaalada gaal ha dhihin, kaafir ha dhihin. ilaahay subxaana wa tacaala ayaana qur'aanku ku dhahay qul ku dheh nabi maxamed alay salaam yaa ayuha alkaafiruun, gaalayahay. waxaa maanta soo baxay dad ku dhahayo qolada aaminsan in masiix nabi ciise ilaah inuu yahay gaalo ma ah. calaa kulli xaal fitanta waa kala duwan tahay. yabiicu diinahu, diintiisuu suuq geynaya. taasa loola jeedaa. anaa meeshii diintiisuu ilaashan lahaa, diintiisu wuxuu ku bedelanayaa maxay? bicarad. carad waxa waaye lacag, madaxnimo, inuu meel kursi u haysto uu sii joogo. bicarad addunya, adduun loo soo bandhigay waa maal, madaxnimo iyo wixii la mid ah.
رسولك مكسح ليه قليل حديث قليل أو وح يرأى وهذا ضمانه قليل وحلول جيدا وقت جاهي سني ساير إلى هذا ضمانه أما قليل وحكر لغو فسري waxa lagu siinayo markasta marka loo fiiriyo aakhiro ilaahay wuxuu kugu tala galay wax yar waa madaxnimo waa yar tahay waa ka xanuunsanaysaa waa ka dhimanaysaa waa lagaa bedelayaa markaasaa qofkii diintiisuu gadanayo u suuq geynaya qofkii oo muslimka ahaa subaxdii waxaa arkaysaa galabtii isagoo gaal ah maxaa loola jeedaa qisaa jirto oo waqtiga nabiga dhacday calayhi salaatu wasalaam nabiga wuxuu lahaa koox oo aad ugu fiican qoraalka marka uu soo xushay kooxdaasi markii waxyigu uu soo dego rasuulku waxa qori jiray saa ula socotaan waxna ma akhrin jirin waxay ka mid ahayd mucjizooyinka rasuulka calayhi salaam marka koox waxaa jirto mar alle markii waxyigu uu soo degayo rasuulka calayhi salaam ka qori jirtay waxyiga kutaabul waxyi ahaayeen shaqadooda waxay ahayd waxyiga inay qoraan kooxdaasi marka ayaa waxaa ka mid ahaa nin soo islaamay oo yahuudi ah ninkaasi aad u qoraalka ugu fiicnaa islaamkiisa waa soo wanaagsanaaday rasuulka kooxdu ku darsaday marka waa garan kartaa haddii oo wasiir lagaa dhigo oo madaxweyne wasiir u kaa dhigto uu ku soo dhowaysto uu ku karaameeyo oo meel mansab fiican ku geeyo adna inaad ixtiraamto ayuu mudan yahay qofkaasi ku ixtiraamay marka amaano waay marka waxa loo dhiibayo waa ilaahay kalaamkiisa qoritaankiisa ninkii yahuudiga ahaa soo u shaqaynay wax u qoray maalin maalmaha ka mid ah qoladii yahuudu ka soo jeeday ayuu u tegey markay la kulmeen wuxuu u sheegay waxay yiraahdeen nin yahuudiintii aabbayaashaada oo diin sax ahayd ayaa ka tagtay kumana habooneen qof adoo kala ah caalimu ahaa oo wax yaqaano oo qoraa ah inuu ka tago markaasaa wuxuu yidhi diin sax ahaan galay oo diinteedii hore ii tilmaantay inay sax tahay marka wuu la dooday doodiisi loo gedgedinayay oo loo waday haddana waxay dhaheen okay dhib ma laha diintaa iska heso gabaraan ku guurinaynaa gurinoo ku dejinaynaa oo maxaa iga rabtaan waxaan rabnaa waxyigaan aa qoraysid oo nebigaa ka guurisay oo nebigaan sheeganaya iyaga ma aaminsana yahuudda in aad wax ka beddesho calaa kulli xaal saan u soo koobo waxyaalaha maanta socdo waayo qofka marka lagu soo noqnoqdo oo la rabo in la beddelo haddii iimaan xoog badan uusan lahayn haddii ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiqda uusan waafajin qofkaasi meel khataru ka dhacaya nimankii way ka dhammaysteen calaa kulli xaal waxay u sheegeen adduun ama xaas ha loo guuriyo mansab ha loo sheego madaxnimo ha loo sheego nimankii way ka dhaadhiciyeen ninkii wuxuu bilaabay dacayad nebiga inuu ku furo calayhi salaam dacayadiis waxaa ka mid ahayd inuu ku dhaho nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan oo maxamed oo dadka ay leeyihiin maxamedaa keenay oo qur-aanka ah wuxuu dhahay anaaba keenayba anaa u qoro anaa u yeeriyo markaasaa xitaa weli wuxuu yiri uu ku dardaray meesha hadduu markuu rabo inuu wax dhaho hadduu dhaho casiizun xakiim waxaan ugu bedelayaa shadiidun ciqaab macnaa shadiidun oo ciqaabun shadiid calaa kulli xaal waxaa dhacday ninkii oo heerkaas gaaray oo mas-uuliyaddii loo dhiibay oo weyneed oo adduun ku gatay rasuulka calai slam markay sheekada soo gaartay inuu dacayad ka sameynayo nebiga calai salatu wasalaam iyo qur'aankina inuu ku been abuuranayo nebiga gacantu kor u tahay calayhi salaatu wasalaam ilaah uu toogay wuxuu dhahay allaahuma ajcalhu aaya oo cibra ilaah waxaa ka dhigtaa aayad ama calaamad dadka ay arkayaan waxa uu sameeyey inuu khaldan yahay ninkii wuu xanuunsaday inkaartaa ku dhacday wuu dhintay markuu dhintay kadib waxaa la geeyey qabrigii waa aasay markii la aasay waxaa la soo sheegay markay baxeen kadib
ninka qabriga banaanka inuu yaalabo markaas waxay yiraahdeen yahuudi waxaan maxamed ka dambeeyay maxamed sameeyay qabri qof aan aasnay in la faago marka cid taabatay xitaa ma laha qabrigaas oo tuuray waxay sameeyeen qabrigii ee hoos u qodeen haddana intii mitir u ahaa in ka badan ay hoos u qodeen way aaseen way dabooleen way ka tageen haddana waxaa loo sheegay muddo yar kadib meydkii inuu banaanka yaallo waxay dhaheen waxaan maxamed sameeyey calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed inay weeraraan ay ku been abuurtaan ay bilaabeen haddana god kii ka sii dheer oo qofna aan niyeysan karin inuu hoos u degto uu la soo baxo godkii qodeen way dabooleen waxay dhaheen markaan meel uu ka gaari doono ma laha muddo yar kadib meydkii kor yaalay arkeen marka isagoo waxay dhaheen waxba kama qaban karno arrintan waa calaamadii waay waxay leedahay arrintan wax aan ka qaban karno ma laha banaanka kaga tageen marka banaanka markay kaga tageen marka xayawaanadii oo eeyaha u ka mid ahaa waxay bilaabeen inay yimaadaan ay goostaan waa calaamad waay iyadoo la og yahay meydka in la aaso diimahoo dhan ay wada qabaan ayaa dhulkiyaa diiday marka waa calaamad qofka diintiisa gata ilaahay subxaana wa tacaala calaamad adduunu tusinaya intaan la gaarin tii aakhiro diin gadashada waxaa ka mid ah in wax diinta ee amartay oo la rabay in aad raacdo in waxaasi cagsigeeda aad qaadato adoo madaxnimo raadinayo ama adoo lacag qaadanayo ama adoo siyaasad kala raacayo marka nafteyda naftiinna madax haddaad tahay maalqabeen haddaad tahay ganacsade haddaad tahay aabba haddaad tahay hooye haddaad tahay khaasatan dadka ay suurtagal noqon karto in diintooda laga fidneeyo haddaad tahay maqaamka aad joogto oo kaliya madaxweyne ahaw ama wasiir ahaw diintaada ha gadan weli xadiisku wuxuu leeyahay waxaad arkaysaa qofka isbedbedel badan 5 darsi oo laga qaadanaya xadiiskaas maanta arrintaas way socotaa dad waxaa jira oo muslimiin ah madaxnimo darteeda diinta suuq geenaya madaxnimo qaadanayo ama ha ahadan kuwa Afrika jooga ama ha ahadan kuwa jooga Mareykanka ama Yurub jooga cidii doonta ahaato ilaahay subxaanahu wa ta'aala rasuulkiisa wuxuu leeyahay qofku isbedbedelaya darsigooda laga qaadanaya waxaa waaye qofka mabda'a aan lahayn waxaa lagu garanayaa subaxdiina waa qof galabtiina waa qof kale xadiiska laga qaadanaya calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu leeyahay subaxdii waa muslim galabtiina waa gaal qaar waxay ku fasireen acmaasha ama dhaqamada uu leeyahay subaxdii waa dhaqan muslim masaajidkaad ku arkaysa isagoo ku tukanayo galabtiina waxaa arkaysaa dhaqan aan islaam shaqo ku lahayn oo ah dhaqan gaaleed ayaad arkaysaa afcaashiisa ama hadaladiisa kow waxaa laga qaadanayaa qofka daciifka ah in subaxdii iyo galabtii laba qof inuu kala yahay laba waxaa laga qaadanayaa fitanta waqtigeeda marka la gaaro waxa kaliya ku badbaadinaya inay tahay acmaasha saalixa ah inaad badiso digri badan khayr badan akhri kitaabka qur-aanka dhegeyso kitaabka qur-aanka meel khayr badan lagu hada ha aadeen masaajidaha waxaa laga qaadanaya xadiiskan acmaasha saalixaadka badi 3 waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiskan cid maadaama qofkaad la saaxiibaysid inuu yahay qof aad ku kalsoon tahay oo diintiisa ay adag tahay adna diinta kugu haynayo inaad iska ilaaliso inaad saaxiib la noqoto qof isbedbedel badan oo subaxdiina muslim ah galabtiina munaafiq ah subaxdii muslim ah galabtiina gaal ah inaadan saaxiibo ka dhigan qof noocaas oo kale ah 4 waxaa laga qaadanayaa in hoggaan aan loo dhiibin oo aan lagu aaminin noocu doona ahaada hoggaankaas heer madaxweyne heer wasiir heer xildhibaan ruux diinta gadanayo oo ama gaalaha ka gato ama dad aan maaragtay dad muslimiin ah oo laftigooda la gatay ha ka gato
afar in aan lagu aaminin hoggaanka shacabka muslimka meel kasta ay joogaan, ama community ha ahaadeen, ama dowlad ha ahaato, ama nidaam kasta ha ahaado, inaan lagu aaminin qof isbedbedel badan oo khaasatan aan lagu aamini karin diintiisa. 5 waxaa laga qaadanayaa xadiiskan fitanta midba midda kale inay ka dambayso, aysan kala go'aynin ilaa qiyaamaha waqtigiisa la gaaro. hadda markaa fiiriso waxaan ku jirnaa waqti fitan badan. waxaa arkaysaa qofkii ilaahay waxbuu siiyey oo heybad ah, heybadii waxay doonta ha ahaato, ilaahay waxbuu siiyey, ilaahay nicmo badan uuna siiyey. nicmadaasi ilaahay uu siiyey darteeda ayaa laga yaabaa in gorgortan lala sameeyo oo diintiisa iyo akhlaaqdiisa uu kaga tago. waxaan weydiisanaynaa ugu dambaynta ilaahay subxaana watacala inuu na sugo. waqtigan oo kale rasuulku wuxuu yidhi, waxaa lagu ducaystaa calayhi salaatu wasalaam, allahuma ya muqalib alquluubi waalabsaar thabbit quluubana calaa diinik. maadaama isbedbedel uu socdo oo qofka isbedbedelayo, waxaa lagu ducaystaa allahuma thabbit, ilaahu waxaad ku sugtaa quluubteenna iyo caqligeenna, ilaahu diinta ku sug. dad aan isbedelin oo diinta ku toosan ilaahu naga dhig. allahuma aamiin, allahuma aamiin, allahuma aamiin. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.